السلام عليكم. maalin kasta waxa hareerahana ka dhaca dhacdooyinkaas inuu dusha ka saarno xukunno aan mudnayn. haddaba shayga kaliya la iska ilaalin karo inaad ku degdegtid xukunnada waa hubsiimada. in badan ayaa Ilaahay Quraanka iskaga hadlay isla markaana inuu ka amray inaynu la nimaano hubsiimo. Ilaahay wuxuu ku yiri yaa ayyuhalladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun fatabayyanu. haddii idin yimaado qof faasiq ay war idin la yimaado iska hubsada warkiisa. haddaba dhacdooyinka hubsiimada ku saabsan ee dhacay aad ayay u tiro badan yihiin isla markaana Quraanka ayaa laga helayaa. Quraanka waxaa ka mid ah Nabi Suleymaan calayhi salaam waxa ciidamadiisa ka mid ahaa aad ayay u badnaayeen shimbiraha. haddaba maalimaha ka mid ah ayuu wuxuu waayay shimbir ka mid ah shimbirihii ciidamadiisa ka mid ahaa oo hudhudka la yiraahdo. kadib Nabi Suleymaan wuxuu goodiyay inuu ciqaabi doono hudhudka ah oo baasha ka jari doono haddii aanu la imaan wax uu ku badbaado. hudhudkii markuu yimi ayaa Nabi Suleymaan wuxuu weydiiyay waxa uu ku maqnaa. hudhudkii wuxuu sheegay inuu ku maqnaa inuu soo arkay islaan meel maamusha oo boqorad ah ayuu uga warramay. kadib Nabi Suleymaan wuxuu ku jawaabay bal waan hubsan doonaa inay run ka tahay iyo inay been tahay. kadib waatu u diriyay oo hudhudkii ugu diray waraaqdan u dhiibay oo islaantii u diray. haddii aanu Nabi Suleymaan hubsiimada la imaan lahayn waxa ku dhici lahaa hudhudka xukun aanu mudnaan lahayn. dhacdooyinka kale ee ku saabsan hubsiimada waxaa ka mid ah waxa qiso ka dhacday wadanka Yemen. waxaa jiray iskuul ka mid ah iskuulada ku yaala wadanka Yemen. iskuulkaas waxaa dhigan jiray hablaha qurux ayuu gaar u ahaa. haddaba maalmaha ka mid ah ayaa waxa laga shakiyay fasal ka mid ah fasalada uu ka koobnaa dugsigu inay hablaha dhigtay ay ku soo qaataan boorsada waxyaalo xunxun yacni cajalado ay ku jiraan filimaan xunxun. haddaba waxa loo diray qaar ka mid ah shaqaalihii iskuulka ayaa waxa lagu yiri soo baara galaaska hablaha ku jira iyo waxay ku hayaan. waxay sameeyeen shaqaalihii baaritaankii kuna sameeyeen galaaskii hablihii ku jiray. haddaba gabar ka mid ah gabdhihii dhiganayay galaaska ayaa diiday in la baaro boorsadeeda, diidayna in la furo. kadib shaqaalihii way kaxayeen oo waxay geeyeen xafiiska iskuulka. maamulihii iskuulka ayaa yidhi boorsada fur. markiiba amarkii ayay qaadatay oo way furtay boorsadii. waxaan kaga soo baxay waxaanay filanayn. maxaad is oran lahayd way kaga soo baxeen? waxaa kaga soo baxay shay runtii aad ula yaabeen iskuulkii aanan ka filanayn meesha. shaygaas waxa weeye inay boorsada ay ku jireen hadhaadigii iyo wixii ka soo haray ardayda markay nus saacaynayaan ama nus saacihii waxyaalihii ka soo haray ayaaba boorsada ku jira. halkii ayay fajac qaadeen waxayna weydiiyeen waxa ku xambaaray inay qaado waxyaalaha ka soo haray ardayda. waxay tiri waxaan ka dhashay reer agoona isla markaana faqiir ah oo aan wax kale haysin. kadibna hooyaday ayaan u geeyaa waxyaalaha soo hara iyo walaalaha si u cunaan. markii hore gabadha waxay ku soo kaxayeen waxay ku tuhmeen wax aad u xun, laakiinse shay aanay filanayn ayaa meesha kaga soo baxay. waxaan ahayd waa hubsiimada. dhacdooyin kale ee ka hubsiimada ku saabsan ee dhacay waxaa ka mid ah nin sodogii dili lahaa. waa qiso runtii aad ula yaabi doontid. qisadan ayaa waxay ku dhex martay nin iyo sodogii. waxaa jiray nin reer lahaa oo meel degnaa ayaa ninkii ayaa muddo reer ka maqnaa oo ganacsi u baxay.
kadib habeenada ka mid ayuu si guura ku yimaaday isagoo si kadiisa ku yimi kadib wuxuu soo galay qolkii hurdada wuxuu arkay islaantiisii iyo qof kale oo qolkii hurda isagii malaxun ayuu malaystay kadib wuxuu la soo baxay seeftiisii wuxuuna dul hareeyay qofkii ninka ahaa islaantiisii ayaa markiiba ku soo booday gacantana qabatay war kuna tiri war miyaad waalan tahay qofka dilayso waa abahay ninkii halkii ayuu naxdin isku yaxyaxay haddaba ninkaas hadduu dili lahaa sodogii maxaa ka raaci lahaa meeshaas sheekooyinka ku saabsan hubsimada run ahaantii aad ay u badan yihiin halkan laguma soo koobi karo dhowrka dhacdo ayaan ka soo qaatay haddaba qof walba inagana ka mid ah waxa loo baahan yahay in aynu wax iska hubsano saaxiibo badan iyo walaalo badan ayaa wax ku kala tageen inay isku arkay hubsimo la'aan iyagana waxba husan ayay kala tageen haddii aad saaxiibka ku aragtid dhacdo aan ka filanayn marka hore samay inaad hubsatid oo ka baaran degtid muxuu sida u yeelay waxa laga yaabaa inay hadda ku soo baxaan waxyaalo aan filanayn waxa ku sida ku kala tagay walaalo badan iyo saaxiibo badan iyo arday badan ayaa hubsimo la'aan ku kala tagay ku kalena irdhoobay waxaan naftiina u dardaarmiyaa inaan mar walba la imaano hubsimada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi